بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Cabdiyeere Garlibaax. maanta waxaan rabaa ummadda Puntland inaan baaq u diro, baaqaas oo ku wajahan mowqifka aan ka qabo dawladda hadda dhalatay ee uu madaxda ka yahay Saciid Cabdullaahi Deni. mar allaale iyo markii lagu dhawaaqay dawladda Saciid Cabdullaahi Deni waxaan u jeedinay baaq oo ku saabsan in dawladda ay noqoto dawlad hufan oo la xisaabtan leh. waxaan kula talinay in uusan qaadan ama uusan la shaqayn ama uusan wax ku darsan dadkii lagu tuhmayay inay mar walba ka soo horjeedaan cadaaladda, ammaanada iyo fayqabidda Puntland. Saciid madaxweyne Saciid mar allaale markii la doortay uu noo yeeray, wuxuu noogu yeeray shir dhammaan musharaxiintii la tartamayay. wuxuu naga codsaday inaan taageerno, wuxuu naga codsaday inaan tala siino. annagana waxaan u jeedinay qodob ah in taladeena uu qaato. haddii taladeena uu qaadan waayana annaga aan bareerayna ka hadlayno, arrinta Puntlandna aan difaaci doonno. walaalayaal, maanta waxaan rabaa halkaan inaan baaq ka diro ballamihii madaxweynaha lala galay oo ahaa in uu noqdo nin hufan, dawlad hufanna oo la shaqaysto. waxaa bedelay dad kale oo reer Puntland aysan dooran oo la yidhaahda Aranjan ayaa dawladdiisa ka dhaxadlaysa. ayagaa qaybaha iyo habka wasiirada loo soo doortay ayagaa ka shaqeeyey. annagu raggaasaan qaadacnay, ma rabno. dadaan aamini karna ma aha, dadaan masiirkeenna aan u dhiiban karna ma aha. Saciid Cabdullaahi Deni markii aan la galnay ballantaasna wuu nooga baxay. waxaan caddaynaynaa asaga iyo dawladdiisa iyo cid allaale cidduu watoo dhan inaynan raalli ka ahayn. reer Puntland haddaan nahayna ay aan diidnay, sababtoo ah dadka la shaqeeyo dad ku dhisan ammaano ama dawladda Puntland ammaanadii loo igmaday ma aha dad qaadi karo. sidaa darteed madaxweynaha cusub iyo dawladdiisa iyo nimanka la yidhaahda Aranjan waa diidnay. waxyaabahaan ku diidnayna waxaa weeye rikoorka ay hore u lahaayeen xilligii dawladda Faroole, waxyaabay hadda ay sameeyeen. baarlamaankii bay laaluusheen, xildhibaanadii bay laaluusheen, wasiiradiiba waxay ku keeneen hab aanu u cuntamin bulshada reer Puntland oo ah dad wada xidid ah, gabdho wada qaba, kala qaba oo isku tolan la yidhaahdo. sidaa darteed waxa ay soo dhoodhoobeen ma yeelayno. markii wasiirada la qaadanayey waxyaabaha cajiibka ah lagu kala qaato waxaa ka mid ahaa Maxamuud Shido in gurigiisa la tago oo siifiyada la geeyo halkii aanan la geyn madaxweynaha ee aanan loo geyn macnaha maxaa la yidhaahdaa iyo madaxtooyada siifiyadii wasiiradii dadkii shaqada raadinayay. waxaad arkaysaa dawladdan inay ayaga yihiin dawlad ay maamulaan oo ay leeyihiin oo ay jeebka ugu jirto. Puntland waa meel la isku darsaday, waa wax dad ka wada dhexeeya. siday wax u qaybiyeenna wax wanaagsan maaha. beelihiiba waxay u kala saareen beelo ah A iyo B iyo C. dad bay aad wax ugu badiyeen, dad bay aad wax u diideen. Puntland isku duubnideeda iyo qabaa'iladeeda yeeli maayo in beel la yiraahdo waa beel A wasaarad A-na la siiyo, in qayb la yiraahdana waa wasaarad B wasaarad aanan u qalminna la siiyo. aniga hadda muhiimadeyda ma aha wasaaradaha iyo qaybtay dawladdan hadda u sameeyeen. gebigoodaba waa ka soo horjeeda, dawladdan ka soo horjeeda, madaxweynahan ka soo horjeeda. xalaal kuma dhisna, nama matali karaan. waan diidnay anigoo ku hadlaya magacayga musharaxnimada Maxamuud Cabdiyeere, siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Mudug, siyaasiyiintii aan isla ahayn musharaxiintii anoo magacooda ku wada hadlayo, gobolka Mudug ku hadlayo, anoo ku hadlayo maamulka cusub oo hadda la rabo in laga yagleelo gobolka Mudug oo la yiraahdo ciid iyo caduun. haddaana laga noqon waxa sida wax loo qabtay oo aanan nimanka la yiraahdo xildhibaanada aysan dawladdan aysan ku samayn motion loo keenin, impeachment lagu samayn. waddankan haddii la kala tago oo la kala go'o adinkaa keenay. annaga ma inaan dooran, mana rabno Aranjan, ma doonayno. waddankan haddii la rabo in la isku hayo oo la wada joogo, maamulka ninkan iyo Aranjan waa inay ka tagaan shaqada.
waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan idiin sheegaynaa waxa Saciid Cabdullaahi Dani uu keenay iyo Aranjan la socdo waxaan aqbali karna ma aha waxaan yeeli karna ma aha waa faashil weeyaan tusaalaan idiin soo qaadanayaa reer Puntland haddii 5 sano hadda uu dhameeyo maxaa la yiraahdaa Saciid Cabdullaahi Dani waxa ku dhex jiro waa Aranjan wasiirkii maaliyadda ayaga ah dhaqaalihii gacanta ay ku galeen 5 sano kadib waxay leeyihiin hagbadii reerkii reegarow lahaa ayaa la joogaa ma ka filan doonaan inay noo qaban doonaan dimuqraadiyad iyo doorasho xaq ah marka waxaan rabnaa inay dadka ila fahmaan aan ka wada hortagno culamadii waa hadleen waxay sheegeen in loo baahan yahay madaxweyne wanaagsan in la helo waxay dadku u tilmaameen madaxweynaha aan dooranayno siduu u eg yahay dhaqankiis ma aynaan dooran Aranjan ayaa waxay noo dooreen madaxweyne ayaga ay samaysteen oo waxay rabaan ay u yeeriyaan waxay rabaan ay ka samaystaan walaalayaal waa caddahay sidii wax u qaybiyeen waa caddahay mataqaanaa madaxweyne inay waddanka yihiin Saciid ninka la yiraahdo Maxamuud Shido haddaad rabto waddankan madaxweyne inaad ka noqotid soo sharax laakiin anaga nooma dhuumanaysaan noogumana dhuumanaysaan dani inaad ka dhaxlashaan waxaan la hadlayaa reer Qardho madaxweynenimada adinka iska leh ma inaydan ka filin inaad mataqaanaa Saciid Dani iyo Aranjan aad noo keentaan annaga idin kuma haysano laakiin waxaan ka codsanaynaa inaad naga badishaan haddaydan bedelin Puntland kala gogo'eeda iyo kala qobqobkeeda iyo in lagu kala tago adinkaa sababay ma rabna inaan kala goono waan israbnaa laakiin waxaan u baahannahay dad wanaagsan oo isku kaayo wadi karo oo ammaanada iyo wadajirka iyo wada noolaanshaha iyo wax walba in la isku wado waxay qabsadeen baarlamaankii waxay qabsadeen wasiiradii waxay qabsadeen madaxweynihii haddana waxaa maqaalin lagu ah inay ciidankii Puntland oo macnaha maxaa la aan ku nasan jirnay inay ayagana qabsadaan awoodda kaliya hadda u dhima weeyaan waxaan ka digayaa dadka ciidamada haysto inaysan ciidanka aysan gacanta loo gelin Aranjan haddii loo geliyo waa noo dhamaatay waxaan la hadlayaa sharaxiintii siyaasiyiintii u hanqal taagayay inay madaxweyne ka noqdaan hadda u timaadeen waddanka inuu isbedel ka dhacana isbedelka maanta loo baahan yahay waxaan la hadlayaa culumadii fadwoon jirtay oo dhihi jiray warsaan yaa la yeelin kan yeelin culumooy ma waxaad u fadwooteen Aranjan inay joogaan aawa fadwada waa socotaa diintu waa diintii waa in la fadwoodo waa in la yiraahdo waxaan sida wax u socdaan yeeli mayno waxaan rabaa inaan mataqaanaa baaq u diro dawladda federaalka waddankan gobolkan Puntland adinka mas'uulka ah sida wax loo qeybiyay yeeli mayno waxaan rabnaa dadkan meesha joogo in mataqaanaa meeshaan ay iskaga tagaan dadka aan doorano ma aha dadka aan rabno ma aha dadka dimuqraadiya hal codna gaarsiin lahaa ma aha waxaan rabnaa dadkani dacwaan ka nahay inayna dhaafaan waxaan la hadlayaa beesha caalamka waxaan la hadlayaa deeq bixiyayaasha war deeq bixiyaalow dadkan haddaad lacag u dhiibtaan nama soo gaarayso dacwaan ka nahay dadka waxba ha ugu dhiibinina shacabka Puntland ha ugu dhiibinina shacabka ilamida waxaan rabaa inay soo baxaan garowe inay soo baxdaan rabnaa magaaladan garowe ama waxaad reer garowe ku tihiin xoolaha Puntland masaakiinta ah in lagu dhaco guryo lagu dhisto na lagu xukuumiyaa raali ka tihiin ma yeelayno waxaan rabnaa reer garowe inaad kacdaan oo kacaanka aad bilowdaan war gaadaala hukumeeyey war shortaayo hukumeeyey war aawe dadkii fiicnaayo musharaxiinta magaaladan kala aawe aniga waxaan ku hadlayaa magaca gobolka Mudug yaan ku hadlayaa musharaxiintayda iyo dadkayga waa diyaarsanahay waxaan ma qaadanayno waa in laga hortagaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.